faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa uu ka soo baxaya dagaal maalnimadii shalay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dhex maray deegaanka Elbaq oo u dhexeeya degmooyinka Balcad iyo Jowhar kadib markii weerar gaadmaha Al-Shabaab ay ku qaadeen 3 gaari oo ay saarnaayeen ciidamada militariga Soomaaliya kuwaas oo ka ambabaxay magaalada Jowhar isla markaana ku sii jeeday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. wararka madax bannaan labada dhinac ayaa waxa ay sheegayaan in 10 askari oo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ay dagaalka ay ku geeriyoodeen tirainta ka badan ay ku dhaawacmeen, waxaana dadka dhaawaca uu soo gaaray kamid ah taliyaha guutada koowaad ee ciidamada dawladda Soomaaliya General Ibrahim Yusuf, isagoona taliyaha la socday ciidamo gurmad ah oo ka ambabaxay magaalada Jowhar ee caasimadda Hiirshabelle. dhaawaca taliyaha ayaa la sheegay inuu yahay mid aad u fudud. Al-Shabaab ayaa barahooda bulshada waxa ay ku daawaceen in weerar gaadmaha ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya isla markaana qasaare kala duwan ay gaarsiiyeen. hayeeshee wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka Hiirshabelle war-saxaafada ay soo saartay ayaa waxay sheegtay in qasaaraha soo gaaray ciidamada dawladda Soomaaliya uu yahay mid aad u yar, isla markaana goobihii maalnimadii shalay ay dagaalku ugu dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda Soomaaliya iminka gacanta ay ku hayaan ciidanka militariga Soomaaliya. xaaladda guud ee deegaanka dagaalka uu ka dhacayna uu yahay mid aad u degan. wadadan u dhaxaysa Jowhar iyo Muqdisho oo iminka ay ku sugan yihiin ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan Midowga Afrika ee AMISOM ayaa marar kala duwan waxa ka dhaca weeraro ay qaadaan dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo beegsada mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Hiirshabelle iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku safra wadada u dhaxaysa Jowhar iyo Balcad. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan, Jowhar.